waxaan safar uga dhaqaaqay magaalada Mbale ilaa aan ka gaaray magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda kusoo dhawow muuqaal ku saabsan safarkayga Mbale ilaa iyo Kampala safar dhaqaale iyo ganacsi Mbale ilaa iyo Kampala safarkaygu waxa uu ka bilowday magaalada Mbale oo ah magaalo si weyn u matasha awoodda dhaqaale beero iyo ganacsi ee bariga Uganda Mbale waxay ku taalaa dhul buuraley ah oo u dhow Mount Elgon buurta caanka ah ee dalxiisayaashu tagaan ee magaalada Mbale taasoo siinaysa cimilo qabow roobab joogto ah iyo carro aad u bacrin ah taasi waxay Mbale ka dhigtay xarun soo saareed oo muhiim u ah dalka dhaqaalaha Mbale waxa uu dubdhaxaad u ah ganacsiga beeraha ee ku dhisan gaar ahaan qaxwaha tayada sare leh muuska iyo galleyda iyo digirta looska iyo khudaarta magaalada gudaheeda waxaa ka jira ganacsiyo dhexdhexaad ah sida bakhaaro suuqyo waaweyn shirkadaha dhoofiya qaxwaha xarumaha wax ururinta ee beeraleyda u diyaariya badeecadaha suuqyada waaweyn waxaa sidoo kale Mbale ka jira warshado yaryar iyo kuwa dhexe kuwaas oo farsameeya qaxwaha galleyda gaar ahaan mid laga sameeyo burka caanaha iyo cabitaanada maxalliga ah ganacsiga xuduudaha ee u dhow Kenya ayaa Mbale siinaya fursado ganacsi oo ballaaran maadaama ay tahay marin muhiim u ah badeecadaha u gudbaan dalalka deriska ah siyaasad ahaan Mbale waxay soo saartay hogaamiyayaal caan ah oo kaalin ku leh Mbale magaalada ay ku nool yihiin muslimiinta guud ee Uganda markii la fiiriyo 18% siyaasiyadda qaranka ee sida Maria Muqaya ayaa kamid ah dadka ka soo jeeda Mbale xildhibaanad haween ah oo si madax bannaan u matashay degmada Mbale taasoo keentay in kaabayaasha sida wadooyinka korontada suuqyada ay horumarino badan sameeyaan Mbale maanta waa magaalo isku dhafan oo ka kooban beero ganacsiyo waxbarashada iyo adeegyada casriga ah safarkeena aan ku sii soconay dhulka dooga ah ee indhaha u wanaagsan dalka Uganda gobolka bartamaha Uganda ayaan ku wajahanahay waxaan sii marnay tuulada Namutumba laf dhabarta sahayda cuntada marka laga baxo Mbale safarku waxa uu dhex maraa dhul ballaaran oo cagaar ah wuxuuna nagu hogaamiyaa Namutumba degmadani inkastoo aanay lahayn magaalo weyn haddana waa tiir muhiim u ah silsiladda ganacsiga iyo beeraha bariga dalka Uganda ganacsiga Namutumba waxa uu si toos ah ugu xiran yahay wax soo saarka beeraha sida Mbale inkastoo uu yahay meel dhexe oo tuulo ah magaalanimadeeduna aad u yar tahay beeraleydu waxa ay soo saaraan noocyada kala duwan ee dalagyada ay caanka ku tahay dalka Uganda kuwaas oo loo iibgeeyo ganacsatada ka yimaada magaalada Iganga iyo magaalada uu ka bilowdo webiga Nile qaybta Uganda ee Jinja oo xitaa ilaa iyo Kampala suuqyada maxalliga ah ee Namutumba waa kuwa firfircoon gaar ahaan xilliyada goosashada sidoo kale waxaa jira ganacsiyo yaryar sida dukaamaha alaabta beeraha gaadiidka xamuulka yaryar ganacsiga xoolaha inkastoo warshado waaweyn aysan jirin Namutumba waxay kaalin weyn ka ciyaartaa quudinta magaalooyinka waaweyn cimilo ahaan Namutumba waa meel kulul oo roobaad leh taasoo suurtagelinaysa wax soo saarka joogtada ah siyaasad ahaan degmadani waxa ay leedahay hoggaan maxalli ah oo diiradda saara beeraha iyo horumarinta bulshada inkastoo aysan lahayn siyaasiyiin waaweyn oo caan ah waxaan soo gaarnay magaalada Iganga oo ah wadnaha iyo isku xiraha bariga iyo bartamaha dalka Uganda isgoyska ganacsiga ee bariga safarku mar waxa uu gaaraa magaalada Iganga waxaana si aad ah loo dareemayaa isbeddelka dhaqaale Iganga waa xarun ganacsi oo istiraatiiji ah kuna taala wadada isku xirta bariga iyo bartamaha oo ah caasimadda dalka Uganda ee Kampala ganacsiga Iganga waa mid aad u ballaaran kana kooban suuqyo waaweyn bakhaaro shirkado tafaariiq ganacsiyo jumlo magaalada waxay caan ku tahay ganacsiga badeecadaha beeraha ka yimaada oo soo mara Namutumba ilaa iyo Mbale sidoo kale Koliro Bugiri kuwaas oo laga sii raro magaalada Jinja ama Kampala beeraha ku hareeraysan Iganga waxa ay saaraan qaxwaha bariiska sokorta yaryar galleyda iyo khudaarta taasoo si toos ah u taageerta ganacsiga magaalada waxaana sidoo kale jira warshado yaryar oo farsameeya alaabahaas xirxirana dibadeedna u dhoofiya dalalka deriska iyo caalamka siyaasad ahaan Iganga waa degmo miisaan leh waxayna soo saartay xildhibaano iyo hogaamiyayaal caan ah taasoo keentay maalgashi dawladeed iyo mid gaar ah loo leeyahay inuu bato cimilada Iganga waa kulul dhexdhexaad ah roobabna leh ku habboon ganacsiga iyo deganaanshiyo labadaba waxaan soo gaarnay magaalada aadka u qurxoon ee Jinja oo ah halka uu ka bilowdo webiga Nile qaybta Uganda xarunta warshadaha iyo maalgashiga marka la gaaro magaalada Jinja safarkeenu waxa uu galayaa wajigiisii ugu muhiimsan dhaqaale ahaan Jinja waa wadnaha warshadaha ee Uganda waana meel si gaar ah uga duwan magaalooyinka kale ee safarka ku jiro ganacsiga Jinja waxa uu ku saleysan yahay warshado waaweyn sida shamiitada
birta, sokorta, cuntooyinka la farsameeyo iyo cabitaanada. Jinja sidoo kale waa xarun tamar korontada iyadoo biyo xireennada ku yaala webiga Nile ay quudiyaan inta badan dalka iyo sidoo kale dalalka deriska ah gaar ahaan Kenya. Maalgashiga shisheeye iyo midka maxalliga ah ee gudaha Jinja waxa uu ka dhigay magaalo dhaqaale oo heer caalami ah. Ganacsato waaweyn, shirkado caalami ah, bangiyo ayaa ku sugan taasoo abuurta shaqooyin badan. Beeraha ku xeeran Jinja waxay diiradda saaraan sokorta, qaxwaha, khudaarta kuwaasoo si toos ah u quudiya warshadaha. Siyaasad ahaan Jinja waxay soo saartay hogaamiyayaal caan ah oo saameyn ku leh go'aamada dhaqaalaha dalka. Cimilada Jinja waa mid diiran oo qoyaan leh taasoo sabab u tahay webiga Nile iyo harada weyn ee Victoria. Waxaa taas dheer Jinja waa xarun dalxiis taasoo ku caan ah ganacsiga hoteelada, gaadiidka iyo adeegyada sii xoojiya dhaqaalaha. Waxaan soo gaarnay ugu dambeyn Mukono, banaanka hore ee magaalada caasimadda ah ee Kampala, albaabka dhaqaalaha ee caasimadda. Safarku marka uu soo dhawaado dhammaadkiisa waxa aan gaarnay Mukono oo ah degmo isku xirta bariga Uganda iyo caasimadda Kampala. Mukono waa xarun dhaqaale oo isku dhafan beeraha, warshadaha, waxbarashada iyo ganacsiga. Ganacsiga Mukono waxa uu ka faa'iideysanayaa u dhawaanshiyaha caasimadda Kampala, taasoo ka dhigta meel ay shirkado badan doortaan inay warshado iyo bakhaarro ka dhistaan. Waxaana jira warshado cunto iyo cabitaano iyo kuwa soo saara qalabka kala duwan. Beeraha Mukono waxay caan ku yihiin qaxwaha, muuska, caanaha iyo kalluumeysiga maadaama ay u dhow yahay harada Victoria. Siyaasad ahaan Mukono waxay leedahay hogaamiyayaal miisaan leh oo saameyn ku leh siyaasadda qaranka guud ee dalka Uganda. Cimilada Mukono waa mid dhexdhexaad ah oo roobab joogto ah leh taasoo sii xoojisa wax soo saarka iyo ganacsiga. Waddo dhaqaale oo isku xirta dalka safarka Mbale ilaa iyo Kampala ee sii mara Namatumba, Iganga, Jinja iyo Mukono waa safar dhaqaale oo muujinaya lafdhabarta Uganda oo aan ku maray dhulkaas qurxoon. Waa waddo isku xirta beeraha bariga iyo warshadaha Jinja, suuqyada waaweyn ee Kampala. Waddadani waa halbowlaha ganacsiga iyo shaqo abuurka iyo horumarka. Waxay caddeynaysaa in bariga Uganda uu yahay tiir muhiim u ah dhaqaalaha dalka, lagana bilaabo beeraha Mbale ilaa xarumaha maalgashi ee magaalada caasimadda ah ee Kampala. Sidoo kale dalka Uganda waa dal caan ku ah doogga iyo cagaarka, beeraha iyo dhulka bacrinta ah, waxaana xawaashi quudin karaa guud ahaan dalalka Geeska Afrika. Ku soo biir boggeena oo sii gudbi muuqaalka, la wadaag saaxiibada kale. Muuqaalkan iyo muuqaalka kale ismaqal dambe daawadayaal.